Bob Media waxaan kusoo gudbin jiray 12 tennis ama 12 tenses haatan waxaan hore usoo geliyey ilaa 8 tennis ayaan hore usoo geliyey maanta waxaan soo gelin doonaa tenniskii sagaalaad oo ah simple future tennis ayaan soo gelin doonaa hadduu iba qadaro insha Allah kolley waxaa waaye wixii subscribers ah waa dhankiina wixii dadaalahna waa dhankayga 12kaas tennis aan halkaas soo gelin doono wax dana ogama lihi oo gaar ah balse waxaan ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan oo marka ayada ah ay markaasi ay la socdaan channelkaasna waxaan ugu talagalay inaan ummadda Soomaaliyeed ugu faa'iideeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan ku sharxi doonaa hadduu iba qadaro tenniskii sagaalaad oo ah simple future tennis. Tusaalayaasha koowaad aan qaadano simple future tennis horta wuxuu ka hadlaa waa dhacdo yar oo fudud markaasi ka hadlaysa aan weli la gaarin oo mustaqbal ah future ah soo marka tusaalaha sii gudagali doonaa waxaan leenahay marka horta shuruucda ay ku shaqeyso waxaa waaye shuruucda tenniskan uu ku shaqeeyo waa subject plus lagu daray will subjectigi ahayd oo ayda ahayd ayaa waxaa ku daraysaa will kadibna verbka ayaad keenaysaa plus verb kadib maxaa samaynaysaa objectigi plus object okay aan bilowna marka waxaan leeyahay I will play football. I will play football. waxaan ciyaari doonaa kubad. Okay. You will cook. waxaad karin doontaa lunch. ado ayaad karin doontaa. tusaalaha afraad waxaan leeyahay we will watch TV aad fiirsan doontaa ama aad daawan doontaa. They will learn waxay baran doonaan Ingiriiska ayay baran doonaan. He will teach something. wax ayuu baran doonaa ama wax ayuu he will teach wuxuu bari doonaa something waxbuu bari doonaa. She will cook waxay karin doontaa cake. She will cook waxay karin doontaa cake. doorsho ay karin doontaa ama ay dubi doontaa. It will eat waxay cuni doontaa meat. hilib ayay cuni doontaa. It waxaa loo isticmaalaa xayawaan sida mutulaalaha iyo waxyaabaha la midka ah. soo marka tusaalayaasha waa kuwan waa simple future tense marka waxaan isticmaalnay subjectiyadu waa kuwan will ayaan raacsiinay verb ficil wuxuu noo noqday ficiladu way badan yihiin play waa ficil cook waa ficil watch waa ficil learn waa ficil sidoo kale teach waa ficil cookna waa ficil eatna waa ficil. soo marka ficilkii waxaan sii raacinay waxa la yidhahda object oo ah qofku ficilku ku dhacay lunch waa muxuu ahay object weeyaan TV English something cook meat intaas waa object. soo marka tenniskan sidaan ayuu ku ilaaday kolley tennisyada kale hore soo aragteen forms badan ayuu lahaa. kan hadda waa affirmative form waa formamka kale marka waa loo bedeli karaa oo systemka ayaa raaca. tusaale midda koowaad haddii aan rabo inaan u bedelo hadda waa affirmative haddii aan rabo inaan question bedel maxaan sameynaa willta banaanka geynaa auxiliaryga banaanka geynaa maxaa leeyahay marka. sidoo kale waxaa idinka iloobay I inay isticmaasho shall iyo will labadaba waa la siin karaa I inta kale laakiin will ayaa la wada siinaa. waxaan leeyahay marka willta banaanka geynaa will I play football ma aniga ayaa kubad ciyaari doono. soo marka dhammaan formamkaas kale ee afarta form kale ee affirmative anaa u sameeyey negative question habkan waxaa waaye waa negative form waa qaab markaas diidmo ah. haddii waxay ahayd wilta banaanka la geenayo
maanta laakiin will I will sideeda ahaanaysa halkaas bis waxaa lagu soo dari doonaa not. tusaale I will not play football, aniga kubad ma ciyaari dooni. You will sidoo kale halkan waxaan gelinaa not. You will not cook lunch, adiga waxaa waaye ma karin doontid qado. We will not, halkan not ayaan gelinaa, anaga ma daawan doono TV. We will not watch TV, TV ma daawan doono. They will not learn English, English ma baran doono. He will not teach something, isaga wax ma bari doono. She will not cook lunch, she will not cook cake, ayada ma karin doonto ama ma dubi doonto muxuu ahaay cake ama doorsho. It will not eat meat, ayada ma cuni doonto hilib. halkaa ayaan kusoo afmeeraynaa. sidoo kale idinka waxay idinka doonaya inaad ka dhigtaan question with negative. aniga waxaan kasoo dhigay affirmative negative, oo idinka waxaan idinka doonayaa qaabka afraad oo ah question with negative. insha allah inaad usoo bedeli doontaan ayaan rajaynayaa. commentiga nagula soo wadaaga insha allah wax alla waxay markaas ka qaldan halkaas. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah, waxaan rabaa inaan ka dhigo affirmative ayay ahaayeen. waxaan rabaa inaan ka dhigo markaasi su-aal inaan ka dhigaa rabaa. maxaan leeyahay marka waan tirtiray ayga iyo wilki waan tirtiray. will ayaan rabaa inaan hor keeno. maxaan leeyahay marka will I play football, halkaas waxaan raacinayaa question mark ayaan raacinayaa. waxaan leeyahay marka will I play football. sidoo kale tan waxaan leeyahay iyadana will you cook lunch ayaan leeyahay. question markna waan raacsiinayaa, calaamatu su-aal ayaan u dambeysiinayaa. su-aasha xigta ama numberka xiga tusaalaha xiga waxaan leeyahay will we watch TV, calaamada markaas calaamad su-aalkaana waan raacsiinaya. sidoo kale tan tusaalahan xiga waxaan leeyahay will they learn English, ma English ay baran doonaan. sidoo kale tan ayadana waxaan leeyahay will ayaan mar walba horumarsiinayaa and will he aan leeyahay marka. waxaan leeyahay will he teach something, wax miyuu bari doonaa. halkaas waxaan raacsiinayaa question mark. sidoo kale tan waxaan raacsiinayaa will she cook, ma waxay karin doontaa, wax miyay karin doontaa cake dhe. will she cook, ma waxay karin doontaa cake, doorsho miyay dubi doontaa ama ay karin doontaa. will it eat meat, hilib. will it eat meat, hilibka miyay cuni doontaa. calaamad su-aal u dambeysiinaya. qaabkan waa question form ayaa loo yaqaana.